بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته isku soo noqod wanaagsan waa mar kale iyo anigu ah cali xirsi oo halkan idinkaga soo gudbinayo ogeysiis gaaban oo aan rabo inaan idin ogeysiiyo in hadda wixii ka dambeeya aanu bilaabi doono sugaan tixaano ah falanqeyn siyaasadeed oo ku saabsan doorashada iyo arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya iyo caalamkaba intii aan ka gaarno. sugaanta siyaasadeed aan idiin soo wado way badan yihiin, waa kuwa aan horey uga tiriyay 4 sano ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xukunka hayay iyo qaar oo ka horreeyay ama muddooyinkan dambeba aan tiriyay. horey ayaan inta badan Facebook idinkugu soo gudbiyay qoraal ah, laakiin waxaan jeclaystay Soomaalidu inta badan in qoraalka waa ku adag yahay iyo akhriskooda inaan idinkugu soo gudbiyo muuqaal ahaan. gabayada soo socda waxaa ka mid ah raggu libin ma moodaan. waxaa ka mid ah gabay kale asna la yiraahdo sida awr dad qaado. inta badan siyaasadda ayay ku socdaan iyo farmaajo iyo nabad iyo nolol iyo mucaaradka ayay ku socdaan, iyo sida ay ila muuqatay inta badan aan jeclaystay inaan sugaan ahaan idinkugu soo gudbiyo waa gabayo siyaasadeed sugaan ahaan, laakiin aan idinkugu soo gudbinayo kuwa dhaqanka iyo waa idinkugu soo dari doonaa iyadana haddii ilaahay idmo. sida awr dad qaado waxaa kaloo ka mid ah lambarka 3aad magacii galmudug iyo haddaad muunadii lumisay. waxaa ku jira lambarka 4aad oo ka mid ah qaadir eebow. waxaa ka mid ah lambarka 5aad ninkii lagu qaldamayo oo farmaajo ah. lambar 6 waxaa ka mid ah axmedow haddii aad istiri waa axmed qorqoor. waxaa kaloo ka mid ah 7 amxaarkii iyo tigreegii isdilay iima kala soocna. lambarka 8aad waxaa ku jira dulaal iyo malaal oo asna ku saabsan galmudug. lambarka 9aad waxaa ku jira balmaxaa iga galay oo kale weeye, waa khilaafka carabaha markii uu soo baxay ayaa asna la yiraahdaa balmaxaa. lambarka 10aad waxaa ka mid ah aamiin ku dara alla dhowrkiyow armay dhicis dhashaa ayaa asna la yiraahdaa. lambarka 11aad waa hiil xamar. 12 waxaa ka mid ah allahayow igaarsii, waa galmudug buu ku saabsan yahay. lambarka 13aad waxaa ka mid ah gabay la yiraahdo maquuste. 14 waxaa ka mid magaciisa la yiraahdaa gunnimadiid. lambarka 15aad asna waxaa la yiraahdaa sow ibtila ma ahan. lambar 16 waxa weeyaan waa hawiye waa hal igar ah. 17 waxaa la yiraahdaa siyaasiga cidda. lambarka 18aad waxaa la yiraahdaa wiilka qoriga haystow. 19 oo asna la yiraahdo adigaa isiifay, iyo lambarka 20aad oo la yiraahdo Soomaalihay digtoonow. kuwa kale oo tiro badan ayaa iyaguna idinla wadaagi doonaa oo boqolaal gaaraya haddii aan la yiraahdo. la soco oo ku xirnow tixanaha sugaanta siyaasadeed. intooda badan qaar ma dhaadheere, qaar waa soo gaagaabin doonaa, waayo Soomaalidu inta badan maxaa la yiraahdaa hadallada dhaadheer iyo qoraalada dhaadheer ma jecla. in gaaban oo kooban oo macno leh oo macnaawiya ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. kulligoodna waxay ka hadlayaan dhacdooyin dhacay iyo waxyaalo run ah oo siyaasadda Soomaaliya 4 sano ee lasoo dhaafay iyo ka horba la xiriirta oo waaqic ah oo caddaymo loo hayo ayay inta badan ku saabsan yihiin. marka ku xirnow oo ku taxnow channelkayga YouTube-ka ee cali xirsi official channel. halkaas ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. subscribe dhaha haddii ayna hore u dhihin, gambaleelkana furta si ay idinkugu soo dhacaan markii aan muuqaalka gabayada ama falanqeynta siyaasadda sidoo kale aan idinkugu soo gudbiyo iyo akhbaaraadka dunida. aad iyo aad ayaad mahadsantihiin. oo anigoo ah cali xirsi kaarsho oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo. ogeysiiska hala sii sheer gareeyo haddii alla idmo.